waxaan hadda ay xaas intaanu guursan wiilka hadda ay qaba hooyo iima ogoleen marka hadda waxaan isku qabnaa arrinka la yiraahdo qubasirada sheekh maxaa dambi iga soo gaaraya meherka aysan waalidkayga ogoleen alxamdulilah nabigana sala allahu alayh waalihi wasallam waxaa ka sugan laa nikaaxa ilaa biwaliyin guurku ma asaxo haddaanu weli lahayn waxaa labaadoo ka sugan min xadiidi caaisha ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baatilun fanikaaxuhaa baatilun fanikaaxuhaa baatilun gabarh kastoo guursata ogolaansho la'aanta weligeeda ama weligeedoon ogolaansho laga haysanin dabcan qaadina uusan gacan dhaafin xadiid kale siduu sheegay nikaaxeeda waxba kama jiro waxba kama jiro waxba kama jiro saddex jeer nabigu ku celiyay alayhi salaatu wasalaam in wadaad ku yimaado ku yiraahdo wixii nabigu waxba kama jira yiri waxba ka jira war meesha ku jiro aadna aad aqbasho ama dhagta u dhigta war meesha ku jira maaha gabadhaasi qudbasirada ay martay guurkaasi ma asixin meherkaasna ma saxna waxay u baahan tahay haddii weli waalidkeedu uusan ogolaanin inta ay ka dhaadhiciyaan ay ogoleysiiyaan una sheegaan inay meherkii saxaan haddii kale wada joogooda ay ku wada joogaan reer iyo gogolna ku yihiin xaaraan wey ma bannaana xiriirka goolada dhex marayana dembi weeyo ma bannaana waa dembi iyo xiriir gogolada xaaraama aan u dhihi maayo oo malihi xad iyo zinaad mudateen malihi ilma haddii uu dhashayna baab kala weeyo ilmuhu aabbihii kaa dhalay baa loogu abtirin ee qudbasirada kaaga dhalay buu ku abtirsani oo ilmuhu isagu dembi ma gelin abtirkiisana la lumin maayo munaasabada badan oo kalena waan kaga hadlay laakiin waxaan rabaa inaan ku iraahdo meherkaasi ma asixin naska nabigaana sidaa haddii aad Itoobiya joogtana Soomaalida Itoobiya ay shaaficiye yihiinna sidaas madhabka shaaficiyada inuusan meherka asixin meherkaasi ma asixin saa darteed gabadho jidka u furani iyo wiilku marka koobaad hadday sidaa isku qabeen waalidkuna uusan ogolaanin oosan raalli ka noqonin horta labadoodu waa inay kala guuraan waa inay hal bil ama hal caado ay gabadhu hesho wey waalidka intii loo sheego meher cusub oo saxan in la sameeyo wey kankii lagu sii wada joogi lahaa maaha ama ilmaha joogo ama yaanu joogin wabillahi tawfiiq